xildhibaan cabdiqani daawud qalinle oo ka mid ah xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmadani Boorama ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay gudaha magaalada Boorama waxaanu shirkiisani jaraa'id baaq ugu diray wasiirada cadaaladda gudaha maaliyadda iyo hantidhowrka Somaliland isla markaasina waxa uu sheegay inay u foojignaadaan cawaaqib xumada ka dhalan karta haddii la lunsado hantida shacabka xilliga kala guurka ee ay isbedelayaan golihii deegaanka ee hore iyo golaha deegaanka ee cusub isla markaasina waxa uu sheegay in carqalad ku noqon doonto xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka iyo gudoomiyaha cusub ee golaha deegaanka ee la soo doorto waxaan rabaa inaan maanta fariin u diro wasiirka wasaaradda cadaaladda wasiirka wasaaradda maaliyadda wasiirka arrimaha gudaha hantidhowraha guud ee qaranka iyo group iyo maxaan ku dhahaa iyo madaxa auditka fariinteedan oo ah mid si toos ah ugu dhacaysa dhammaanba laamaha amniga Soomaaliland waxaan rabaa inaan kaga hadlo waqtigan lagu jiro waqti xasaasi ahna waqtigii kala guurka waxaan rabaa inay ka foojignaadaan xumada ka dhalan karta haddii hantida shacabka magaalada Boorama la lunsado cawaaqib xumana ku noqon karta xildhibaanada cusub ee gobolka u soo baxay waxaan rabaa iyaguna oo fariin u diraya hantidhowraha guud oo leeyahay ha laga warhayo hana la ilaaliyo hantida shacabka xildhibaan cabdiqani daawud qalinle ayaa eedo u soo jeediyay maamulka gobolka iyo kan degmadani Boorama ee gobolkani Awdal waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaan marnaba aan loobi karin oo iyada rabaa inaan ka hadlo madaxda gobolka heer gobol iyo heer degmada inay faragelinta ay nagu hayaan ay joojiyaan kuna toosaan shaqadooda maadaama annaga waxaan nahay dad elected kuna yimiday codka shacabka oo maanta la mid ah madaxweynaha jamhuuriyadda iyo madaxweynaha maamul leeyahay dad warqad lagu soo magacaabay sababta awgeed waxaan rabaa inaad joojisiin faragelinta aad ku haysaan xildhibaanada cusub shaqadiina aad gudataan taas ay rabaan fariinta inay gaarsiiyo waxaan kaloo iyakana fariin mar labaad ku xoojinaa fariintaydan inay wasaaradda arrimaha guduhu sida ugu dhaqsaha badan leh ay kormeer ugu soo dirtaa auditna ugu soo dirtaa in lacag la lusaday iyo in lacag la madmadoobeeyay taasna waan farayaa aad baan u mahadsantihiin jazakallahu khayr Qadar Maxamed Xasan Labaqayle shabakada wararka ee Geestiir magaalada Boorama.